waxay u dhaceen kaydkii ugu weynaa dalka Sweden waxayna xadeen hanti lagu qiyaaso $5 milyan waxayna ku dhaceen diyaarad nooceedu yahay helicopter waxayna ahaayeen tuugo khubaro ah waxayna dejiyeen qorshe cajiib ah oo ay ku xadeen magaaladan. It was a theft worthy of a spy thriller. haddaba siday u xadeen kaydka sidayse u baxsadeen tuugtaasi ugu dambaynsa sidee loo soo qabtay su'aalahaas iyo kuwa kale ayaynu jawaab ugu dooni doonaa xalqadeenan xogdoon oo ku saabsan dicii weynaa ee loo geystay kaydkii Fatasberg ee dalka Sweden iyo tuugadii dhaca ka dambeysay. وبشي سبتمبر سنة 2009 وانا عاصمة waddanka Sweden ee Stockholm oo maalmaha kamid ah ku kulmeen jasiirada ku taala in la oran jiray Gorman iyo laba nin oo asxaab ahaayeen sheeko iyo iswaraysi dheer kadib Gorman waxa uu la wadaagay jalayaashii arinaani ka filanayeen oo ahaa qorshe cajiib ah oo ay ku xadi karaan meel macdaasan tahay sidoo sheegay iyagoo oo la yaaban arrintii bay la fagureen weydiiyeen waxa la dhacay iyo meesha la dhacayo mid kamid ah baana Gorman weydiiyay haddaba garanay in nimcada la dhacayo sidee loo dhacayaa saaxiib ismaba dhimina Gorman waxa uu ugu jawaabay saaxiibkii aniga diyaaradaada wax ku dhacaysaan igu ogaada idinna waxaan idinku ogahay dhicitaanka iyo shaqadiisa kolkaas bay ku qanceen faqeena sheekadii iyo arrintii dhicitaanka iyo mugeega inta uu leeyahay iyo waliba suurtagalka inay dhici karaan meesha uu sheegay kolkii ay dhamaysteen sheekadooda way kala holeeleen ninkii Gorman kolkuu meel salka dhigay waxa uu dhaqaaqay baadidoonka diyaaradii uu ballan qaaday asxaabtiisa ee ay dhicitaanka ku geysanayay isagoo markiiba wacay tuug Swedish ah oo baxsi u joogay dalka Serbia oo maafiya ahaa isagoo oo ka dalbaday inuu ka caawiyo dhicitaanka muruq iyo maalba midka uu u baahan yahay isagoo kolka Gorman dhaqaaqay kolkay wada hadleen dhankii garoonka diyaaradaha ee magaalada Stockholm si uu uga duulo ula kulmo ninka maafiyada ah si foolka foola isagoo kolkuu ka degay Serbia la kulmay ninkii maafiyada ahaa lana yeeshay kulan ay ku laafagurayaan dhicitaankooga kulan kolkuu dhamaadayna waxa uu Gorman dib ugu soo laabtay dalkii Sweden waxaana markiiba la kulmay raggii ay asxaabta ahaayeen ee dhicitaanka wada geysanayeen nin kamid ah oo la oran jiray Charbal oo ahaan jiray tuug saqajaan marar badan wax dhacay xabsiyaduna aanay ku cusbayn kulan kadibna Gorman waxa uu saaxiibkii ka codsaday kana dalbaday inuu u soo gado ama iibiyo taleefano shan ah taleefanadaas oo ay iskala xiriirayaan kolka ay dhicitaanka qorsheynayaan ama wadaan isagoo oo diidanaa inay iskala xiriiraan taleefanadooda shakhsiga ah waayo taasi waxa ay fudaydin kartaa in la soo qabto tuugtaas marka ay dhicitaanka geystaan kolkii uu Charbal soo iibiyay taleefanadina waxa uu toos ugu dhiibay ninkii Gorman oo ahaa madaxa iyo maskaxda dhicitaanka oo isna markiiba uu sii qaybiyay taleefanadii raggii ay dhaca wada geysanayeen ama kooxdii oo uu mid kastaba siiyay taleefan una xil saaray sidoo kale hawl gaar ah ama shaqo gaar ah oo uu ka geysanayo dhicitaanka dadka shaqooyinka gaarka ah loo xil saarayna waxa kamid ah in la oran jiray Nemanja oo loo xil saaray indhaynta iyo ogaalka garoomada ku yaala waddanka gaar ahaan caasimada Sweden isagoo oo markiiba Nemanja helay garoon ay ciidanku lahaayeen oo dhinacna ka ahaa salin dhinacna ka ahaa garoon ay ka duulaan diyaaradaha ciidanku gaarka u leeyahay kolkuu helay garoonkaasna waxa uu la wadaagay ninkii Gorman oo uu sheegay inuu ku sameeyo basaasitaan iyo dabagal dheeraad ah garoonkaas isagoo oo ka aqbalay arrintaas bartayna qaabka iyo nidaamka uu u shaqeeyo garoonkaasi isagoo oo xifdiyay xilliga la furo garoonkaas iyo waliba xilliga la xiro waxa uu xogtaas la wadaagay kolka madaxii dhicitaanka ee Gorman kaas oo xiriir toos la lahaa ninkii maafiyada ahaa ee maalgelinayay dhicitaanka ee ku noolaa dalka Serbia waxayna isugu xirnaayeen tuugtaasi shabakada waxayna qorsheynayeen inay dhacaan dhismo kayd u ahaa magaalada Stockholm bangiyada ku yaala oo ahaa meesha ugu weyn ee ay hantiyo taalo dalkaas caasimadiisa oo sida la sheegay ay taale hanti dhan $150 milyan lana oran jiray Fatasberg oo sida la sheegay ahaa kaydka ugu weyn magaalada Stockholm. The surveillance footage is from September of 2009. bishii September 2009 waana saqbar saacadu ay tahay 2:00 halkaasoo ninkii loo xil saaray garoonku uu indhayntii ku hayay weli garoonkii kolkii diyaaradii u dambeysayna ay ku degtay garoonkaas shaqaalihii iyo ciidankiina ay ka rawaxeen waxa uu soo galay ninkii garoonkii isagoo afka duwan oo wata 2 shandadood ismaba dhimin waxna muu xadine wuxuu shandadihii dhigay albaabkii garoonka isagoo oo markiiba ka cararay meeshii si aan loo qaban waxaana ku dul qornaa shandadahaas qarax ama
bam waxaana ka iftiimayay light bigwac leh. intaa kolkuu rakibayna waxa uu wacay madaxii dhicitaanka ee Goran waxauna u sheegay in hawshiisii qabsaday halkaasoo koonaha magaalada xilliga ah ay 4 nin oo kale oo tuuga ahay oo ka mid ahaa kooxdaas ay iyana raadinayeen diyaarada ay afduubtaan ama xadaan. waxayna joogeen kolkaa garoon si gaara loo leeyahay oo kale oo ku yaalay magaalada Stockholm. waxa ayna ka xadeen helicopter ku barkin garaysnayd garaashka iyagoo oo mid ka mid ah 4 duuliyey maadaama uu ahaa duuliye. waxa uu kiciyey diyaaradii waxa ayna abaareen dhinacii kaydka uu ku yaalay halkaas oo ay ku sugayeen qolo kale oo dhicitaanka wax ka ogay. waxay socdaanba waxa ay soo gaareen agagaarkii kaydka kolkay saacadu ahay 5 subaxnimo. waxa ayna diyaaradii dul heehaabiyeen dhismihii kaydka iyagoo kolkaa ay dareemeen guuxa iyo gariirka qaalihii kaydka oo xilligaa ku jiray shaqadoodii habeennimo oo lacag tirin iyo diyaarin waday. mid ka mid ah baana dibadda u soo baxay balse uu u soo hubsado guuxani wuxuu yahay wuxuuse arkay markiiba inay tahay diyaarad. ileen tuugtii waxay ku duldejiyeen diyaaradii dhismaha dushiisii waxaana ka soo degay 3 nin oo mid ka mid ahi watay dube amaba Bruce uu ku tumay markiiba dushii dhismaha oo ka samaysneed muraayad ama quraarad halka 2 nin kale la socday iyana ay xarig dheer oo ay wateen ku xidheen salaan uguna xidheen xarigaas lugtii diyaaradda amaba taayiradeedii iyagoo ku guntay. dhanka kale ninkii dumayay muraayaddu waxa uu awooday inuu ugu dambeyn jabiyo muraayadii. markay jabtayna waxa ay 2 nin ku dhaadhiciyeen salaankii ay wateen dhismaha gudihiisii waxaana ku dhaadhacay 3 nin bartii iyagoo oo gudogalay dhicitaankoogii. waxaana kolkaa arkay mid ka mid ah shaqaalihii hubinta ku jiray oo markuu isha ka qaadayba u cararay dhankii qasnada amaba kaydka si uu u garaaca ciidanka uuna wargeliyay dhicitaanka. iyagoo aanay tuugtii damba ka lahayn ayay shaqaalihii kaydku ku dhuunteen meel. ciidankiina waxa uu gudagalay inuu ka jawaabo fariinta degdega ah ee uga timi kaydka ugu weyn magaaladaas oo ay u xil saareen 2 cutub oo ciidan ah kuwo ay u xil saareen inay qaataan diyaarad oo ay baacsadaan ama eryadaan tuugtaas maadaama ninkii shaqaalaha ay u sheegeen inay diyaarad wateen iyo qolo kale oo ay u xil saareen inay gawaadhi kacaystaan horena u gaadhaan meesha dhicitaanka laga geysanayo. ciidankiina waxa ay toos u abaareen 2 meelood ee loo kala diray. nasiib xumase waxa la kulmay 2diiba caqabad oo ay ka gudbi waayeen oo kooxdii loo diray garoonka kulkii ay gaadheen waxa ay arkeen shandadihii qaraxyada oo kolkii u dhowaadeen arkeen inay ku dul qoran tahay bambo kana dulbaxayay iftiin iyagoo markiiba ka dhacay inay ku dhiiradaan furitaanka ilbaabadaas. waxayna wargeliyeen kolkaa ciidankii miina baadhida. dhanka kale ciidankii gawaadhida watay askarta ahayd iyana waxa la kulmay caqabad ahayd in wadooyinkii laga gelayay dhismaha kaydka dhammaantood lagu qubay musaabiir iyo biro daloolinaya taayarka gaadhiga oo ka dalooliyey dhammaan qaar ka mid a gawaadhida ay wateen kuna noqday caqabad ay ka gudbi waayeen. halkaas bayna kooxdii labaad ku cadilantay. dhanka kale tuugtii iyana waxay iska wateen dhicitaankoogii waxa ayna guranayeen lacagtii iyagoo aan haba yaraatay warwar qabin. kolkay qaateenna in ku filan lacagtii ahaydna intay qaadi karayeen waxa ay dib u raaceen salaankii waxa ayna fuleen diyaaradoodii iyagoo ka huleelay meeshii toosna u aaday koonaha magaalada. waxayna ku dejiyeen diyaaradii meel kayn ahayd iyagoo ku kala qaybsaday lacagtii bartii mid kastaana uu qabtay gurigiisii iyo meeshii uu ku dhuumanayay. waxayna kaga tegeen diyaaradii kayntii waxayna sidaa ku dhaceen kaydkii ugu weynaa magaalada Stockholm ee Fatersburg iyagoo oo aan la kulmin haba yaraatee wax harqalad iyo ciidan ah toona. sida la sheegana waxay dhaceen lacag lagu qiyaaso $5 milyan oo dollar. kolkii waagu baryayna subaxaas warkii dhicitaanku waxa uu ku faafay gabi ahaanba magaalada Stockholm. ciidankiina waxa uu dhaqaaqay baaridoonka ragga dhaca ka dambeeyay ee dhacay kaydka magaalada. waxaana uu cadantay dhanka kale ciidankii miina baadhida in shandadihii qaraxyadu ahaayeen been oo aanay haba yaraatay ku jirin wax qarxa ee cagsiga ay ku jireen qalabo iyo alaabo aan wax qarxa ahayn oo ay ku xidhnaayeen iftiin yar oo beena iyo qoraal ku dul qoran oo isna fayka. waxayna sidaa u sameeyeen inay ciidanka siraan si aanay diyaaraduhu ugu aryin kolka ay dhaca geysanayaan iyo sidoo kale inay helaan waqti dheeraad ah oo ay dhicitaanka ku geysan karaan. halkaana waxa ugu furay dhacoogii si guul ah waxaana loo dhaqaaday soo qabashadii tuugtaas sida cajiibka ah u dhacday kaydka lagu qiyaasay in habeenka ay ka xadeen $5 milyan ee dollar. intaynan u gudbina soo qabashada tuugtaas. haddaad ka heshay xalqadan fadlan like saa subscribe na dhex kanalka si aynu u gaarno 50,000 oo subscribe kuna soo dhawaada qaybta xigta ee sheekada oo ah sidii loo soo qabtay tuugta ka dambeysay dhaca.
kolka ay tuugtii dhaceen kaydkii iyo caasimadda waxa magaalada Stockholm soo wajahay lacag yari walow aanay wada xaalufin haddana waxay ciidankii ku hayeen dabagal tuugtaas ay ku soo qabanayaan ugana soo celiyaan lacagta ay dhaceen waxayna ogaadeen kolka ciidankii in warka dhicitaanku hore u soo gaadhayba oo ay u soo sheegeen dhiganayaashooda Serbia oo ku wargeliyay ciidanka Sweden in ninkii maafiyada ahaa ee Swedishka ahaa uu qorsheynayay arrin dhicitaan halkaas oo kolkii ciidanka Sweden la wadaagay ay dhayalsadeen arrinta maadaama aanay haynin caddayn dhab ah oo ay cid ku soo xiri karaan dhayalsigaas ay dhayalsadeenna waxa ay keentay dhaca ay geystaan tuugtaasi kolkii ay baadheenna waxa ay xaqiiqsadeen ninka maafiyada ahaa inuu si joogto ah ula xiriiri jiray ninkii Goran ilaan tuug la yaqaan buu ahaa ninkaas maafiyada ah kaas oo ay si joogto ah ciidanku ugu hayeen dabagal kaas oo keenay in la ogaadaba mar hore inuu qorsheynayo arrinta waxayna dabagal joogto ah ku hayn jireen cid la soo xiriidha oo ay dhageysan jireen taleefanadeeda dadka la dhageysan jiray taleefanadoodana waxa kamid ahaa Goran walow aanu isticmaali jirin markuu dhaca geysanayo taleefankiisa oo isticmaali jiray taleefanadii uu soo iibsaday haddana waxay sameeyeen ciidankii cadaymo ay ku heli karaan bal xogo dheeraad ah oo ku saabsan dhaca waxa ayna heleen xogaha isdhaafsadeen tuugtaasi waxayna baaritaanka dheeraadka ku heleen wicitaanadoodii iyo waliba meelaha ay ku sugnaayeen kolkii dhaca la geysanayay maadaama ay wada hadlayeen habeen waxay heleen shabakadii ay ku wada hadlayeen SIM-card iyo wicitaanadii kala duwanaa ee aan caadiga ahayn ee ay sameeyeen raggaasi xogtaas oo dhan waxay ku heleen ciidankii meesha ay joogeen markay dhaca geysanayeen iyo waliba madaxii dhicitaanka ee Goran markiibana waxay xabsiga dhigeen ninkii ka dambeeyay dhaca ahaana madaxii dhicitaanka ee Goran waxayna ka heleen aqalkiisii lacag fara badan oo caddayn dhab u noqotay inuu dhicitaanka ka dambeeyay maalintii xigtana waxay ku qabteen riboodka magaalada Stockholm nin kale oo kamid ah tuugtii oo rabay inuu ka baxsado dalka waxayna u taxaabeen xabsiga isbuucyadii xigayna waxay heleen tuugtii kale qaar kamid ah sida ninkii taleefanada soo eebiyay oo markii dabagal lagu sameeyay taleefanada la ogaaday meeshuu ka soo iibsaday lana helay xogtiisa iyo macluumaadkiisa waxaana la sheegay inay soo xidheen ciidanku dad lagu qiyaasay 10 qof oo ku lahaa kiiska dhicitaanka ugu dambeyn dhamaantood waxa lagu xukumay xukumo kala duwan walow qaar kamid ah aan lagu helin cadaymo kuwa kalena ay dafireen dhowrkii milyan ee ay dhaceen in yar oo kamid ah ayaa la helay intii badnaydna lama helin lacagtii ay xadeen oo milyanis kor u dhaafaysay waxayna sida ugu guuleysan xaditaankoogii walow ay ciqaab xabsi u mareen raggii dhaca ka dambeeyayna qaar kamid ah maanta waa xor kuwa kalena waxay weli ku jiraan xabsi oo waxa ay qaadanayaan xukunkooga haddii aad ka hesho daawada xalqadan fadlan like saar subscribe na dheh kanalka kana mid noqo xirta xogdoon oo la soco xalqad cusub isbuuc kasta maalinka Jimcaad waxayna ku soo afmeeri doonaa xalqadeenan weer laga hayo raggii dhaca ka dambeeyay mid kamid ah mar wareysi bixinayay oo u sheegay saxafiyadii wareysanaysay weerahan waxaan ahaa ruux darogada la qabatimay xilligan dhaca geysana xaalad kale ayaan ku jiray xabsigu soo adag yahay walow aan qoyskaygii iyo reerkaygii ay nakala dhex mareen arrimo adag imaysa jarin weli hadeerse waan ku degay xabsiga oo waan caqliyeystay asxaab baan ku yeeshay xabsiga sidaan hubana dambi dambe layguma oga oo xitaa kama sheekaysto dambiga iyo dhicitaanada haatan cagsiga waxaanu faaqinaa siyaasadda aniga iyo asxaabtayduba waxaan isku dayay inaan asxaabtayda ilaashado markaan xitaa xabsiga ka baxo mana kala xiriir furmi doono haddaanay dib ugu noqon dambiyadii det var en väldigt rörig tid det där och jag vet inte hur jag ska kunna redogöra för den på ett tydligt sätt på så kort tid. Utan jag mådde väldigt, väldigt dåligt under den här tiden. Det var ju precis det som hände. Och det är ju att du blir paranoid på ett eller annat sätt. Förutsatt att de inte lever ett liv som jag inte kan. Samtidigt så är det så här inne man ställer upp för varann och man finns för varenda dag. Och när man håller sig i schack så finns det ingen anledning för mig att inte ta en kaffe.